واجرتا بنادمكم مع بشوايو لكن إمكا وحلقة بنا دادا شرعا ويو لعق ما هستيو لكن ما عارف ما تقبطها بل اخترك تقول ضدك مالغمين كي بوكا ويدي محي وباهنتي وحلقة بوحي هانتا هستان ودان إن السيسان لهايان إن محي ودنها حنونا ينو كاكعو لكن هذا ودنها قايس كبك بقولها بني مالين با بم كاشقين يمركا توردية مركا ما بوجد وحوين بكولا ماها عارف ما تقول هانكو هستان وقا شورين أبدا لسه تاقنتي يعني مركا نعمة الدريمي ويدو انت يرى النقصان تيكو هيستونا الدرينتا بنادمكو عينكا بنادمكو قف way adagtay inaad aragto qof binaadam intuu ku yimaado wuxuu nimcaha halay kaaga warrama qof wali waa bal warra marka tira wallahi maanta waxay ku dhacay moogtay buu ka bilaabaya yeed ka ashtakoonaysa marrabiga qof waliba wuxuu wadaa inta yar ee mushkilada qabsatay ayuu ka warramaya laakiin asalku wuxuu yahay maxay nicmada badan ee ilaahayna siiyay ka maada marka waxa weeyaan salaada marka tukatay waxaad leedahay ilaahay wixii aad xaqiiga mudnayd حق تقاته لما يمنن انت سان لا يميل له دمبيغا داف باد لهدا استغفرت الله من سمعنا دعائك عبادات كودن با قرانكو ينو تلمامين ان كو كبنين بدنو كميدا مثلا ثم افيض من حيث افاض الناس واستغفر الله ان الله غفور رحيم عرفا ومالمه ugu khayr badnaaya oo maanta dhan dadku banaan taagnaayo ilaahay bariyay ayaa ilaahay wuxuu yiri marka carafa ka soo dareertaana halka dadku ka soo dareeraya ka soo dareera dabatana wastaghfirullah istighfarna ku daraba lalay ayuha alahibba ilahay quraanka wuxuu tilmaamaya dadka saalixiinta kaanu qalilan min al-layli ma yahja'un ba ilayhi habeenkii in yar bay seexdaan ba leeydi dad saalixiin oo ilahay ka warramo jannada uyuunteeda iyo nicmadeeda haysta kaanu qalilan min al-layli ma yahja'un hal ugu xigsi wa bil ashari هم يستغفرون هبين كي واتاغين بالليل وقت السحور كمركي قاعدين صلاة الصبح سور دودا هنا استغفرت بلابان يو عاورد الصلاة كنيي أي مركع واحد يبو بلابان محي استغفرت إلهي وحين لي فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك بل النبي محمد عليه الصلاة والسلام لباطني يصدح سنضاد بو دين إسلامي قاينو هرقلي وددالي جهاتمي wax kasta oo qof bini aadam soo maro nolosha uu soo maray haday dhulkiisa laga saaratay haday dagaaltay haday gaajatay haday rabshad wax kasta oo bini aadam ku dhaca ayaa soo maray dabeetana ilaahay wuxuu ku yiri marka aad guusha gaadho ee ilaahay nasrigiisu ku yimaado ee aad aragto dadkoo diinta koox soo galaya istighfaarta badsaba leeyri wixii aad soo shaqayso dhan istighfaar ka dabage سادرادد با سورة دي ودن بيسي قرآن كسودك تكا سورة آهان وإذا جاء سورة سكودان آيادا سودك إيادا دبدد لكن سورة كاملة دبدد مسودكين إلهي وحلا إذا جاء نصر الله والفتح هدي وكوي ما دا إلهي قوشيس يفر شد الرب هدي كوتي ما دو ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا وأدركت الضد كوح سوق لي دينته بني آدمكم مركو قول استمحوا سمايا كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه وكبراين تبضن بني آدم مركو نعمة هلا وكبرا بلا أدنه وفيرسو مالنتي حرية دا مالنتي عين كان محي دولده سمايا حوق قودا يا عيدا كودا يا خطبة وضاءها إن وهل قني بالغادا دي بربراد نيتا لغادا صوماها عيد استغفر الله يستو إلهي طوبت كان تم ياركتين نبي محمد مركو مكفرنا مكادي لغا ساري wuxuu soo galay isagoo neefku fuushanaa dushiisa madaxiisa uu gaari ku dhadhow yahay oo ilaahay subxaanahu wa ta'aala isu dhul dhigaya ilaahay wuxuu ku yiri markaad guusha hesho waa goorma gaal oo dhan markaad ka guulaysato ee diinta ilaahay kor yeelo ee dadku ay diinta u soo galaan koox awal qof ba soo islaamayay waraayta an-naas yadkhuluna fi diin illaahi afwaaja aad aragto dadkoo diinta koox u soo galaya marka maxay sameey baa ilaahay yiri aku xiga fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba ilaahay u tasbiixso adigu xamdigiisa ku dheehaya subhanallahi wa nafyi wa ilaahay aad xumaa ka hufayso alhamdulillahi wa amaan wa ilaahay aad amaan oo dhan u sugayso istighfaarkuna waa adigu dacfigaaga sheeganaya idan
ammaan halkii u dambaysay weeyaan ilaahay waxaanu cuntaminna inaad naqaa'isoo dhan ka reebtid maxaamidda kamaal oo dhanna aad u nisbaysid kadibna aad dacfigaaga qiratid oo tidhahdid anna waa toobad keenaya anna waa istikfaarsanaya oo waa toobad keenaya saasaa nabigii la faray calayhi salaatu wasalaam walidaalika markay suuraddani ku soo degtay kadib wuxuu odhan jiray subxaanaka allaahuma rabbana wabixamdik allahuma akfir lii ayuu rukuucda iyo sujuudda iyo odhan jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam idan ayuha alaxiba acmaasha acmaal kalaa lagu kabaa maalan maxaa layna yidhi soonkii markaa soontaan zakaatulfitri haddana bixiya zakaatulfitrigaasi maxay keenaysaa baa la yidhi jabraani naqs wixii ramadaanta dhexdeeda idinka dhacdhacay dunuub ama nuqsaan ku dhacay ku kaba baa la yidhi salaaddii baad yara sahwiday maxaa la yidhi ka dabagee laba sujuudood aad ilaahay foodda dhulku u dhigayso waa jabraanu naqs naqsigaagii baad dib u kabaysaa soo duuduuba ayuha alaxiba darsigaygani wuxuu ku kooban yahay markaa kow inta wax qabanaysaa yaan cujbiyo quruur ku dhicin ilaahay baa og inta la aqbalaya kaasi waa mid dadaalka inaad badiso oo haddii alla wax kaa aqbalo waxa la hubaa camalka kalena inuu kuu hagaagayo adduunya aakhiraba inaad guulaysanayso acmaashu marka in la aqbalaba inta kale alla sii fudaydiyaa saalix ka sii dhiga se waxaynu u baahannahay laba halba inaynu ku dadaallo kow qadiyatalcilmi inaynu ku dadaallo waxa waxaynaga asaxayaa waa dhib 40 sannadood inaad tukanaysay ilaa haddana aanaad aqoonin salaaddu maxay ku burtaa ama maxaa lagu aqbalaa aad garan waa dhib mas'alatalcilmi camalkaad samaynayso inaad isku dayda aqoon inaad u yeelato ka labaadna waa maxay waxyaabaha camalka ama buriya ama nuqsaamiya ama u diida in la aqbalo inaad ka jafi kartid isku daydo intaad ka jafi kartidba inaad ka jaftid ka saddexaadna istikfaarta iyo tawaaduca iyo rabbi isu dhuldhigiisa inaad badsatid ilaahay waxaan ka baryaynaa subxaana wa tacaala intaynu la nimiina alla inaga aqbalo acmaasheennu cinda allaahi tii maqbuula in alla ka yeelo waxaa acmaasha burinaya in ilaahay subxaana wa tacaala inaga faydo qalbigeenna in ilaahay subxaana wa tacaala nadiifiyo saafi ka yeelo kuwa muslima oo islaamnimadoodu dhabta ku dhinta in alla inaga yeelo sala allahuma calaa muxamadin wacala aalihi wasaxbihi wasalam